wafdigani oo warkacay wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cabdi Xaashi soo gaaray magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan ayaa waxa garoonka caalamiga ee Khartoum ku soo dhaweeyay diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan hogaaminayana u qaybsanaha hidaha iyo tacliinta sare ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Dr. Cabdiqaadir Guulane wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda Suudaan gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Afrika Dr. Cabdiqaadir Guulane oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta wafdiga wasiirka ayna joogi doonaan maalmo kooban si loo adkeeyo xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda Suudaan iyo Soomaaliya ayuu yiri oo qaybsanaha hidaha iyo tacliinta sare ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Dr. Guulane dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa ka mahadceliyay sida wacan loo soo dhaweeyay waxaana tibaaxay inay u yimaadeen Suudaan adkeynta iyo wada shaqeynta rasmiga ah ee dhaxmari doonta labada wasaaradood waa tan Suudaan iyo tan Soomaaliya ee dhanka waxbarashada mar uu la hadlayay warbaahinta qaranka ku farxay in SNTV joogto Khartoum waxaan halkaan u nimid inaan ka shaqeyno si warida hagaajinta calaaqaadka waxbarashada iyo si guud tan labada dal walaalaha oo saaxiibka ah oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Suudaan inaan ka shaqeyno haddii aan leedno in la ziyaadiyo wada qabsiga dhinac walba oo dhanka tacliinta sare iyo tacliinta waxbarashada iyo barbaarinta labada ah iyo thaqaafadaba wixii aan ka gaaro inaan cusboonaysiino wanaajinana runtii waxyaalo badan ku kabno اتفاقيات ama heshiisyo horay jiray oo dhinacyadaas waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa wasiir dowlaha iyo wasaaradda tacliinta sare oo waqti aad u dambeeya nagu sugay mataarka iyo qaybsanaha iyaga waxbarashada culture-ka maanta ayaa lagu wadaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cabdi Xaashi inuu la kulmo dhigiisa dalka Suudaan si uu uga hadlo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeyn doona labada wasaaradood iyo adkeynta xiriirkaasi Cabbaas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum Suudaan